السلام عليكم مركله anagoo leh bahda la socoto casharada yar yar ee ka baxa ee dugsi waxaan idin leenahay markale soo dhawaada anagoo muddo ka maqneen hawada waxaan leenahay dadkiina samarka badnaa ama emailada noo soo dirana aad baad u mahadsantihiin mar walba maanta waxaan rabnaa inaan wax yar ka taabano sida loo fursadaha ama si aaladaha loo hagaajisto computerkaaga adiga oo uusan qarash ka bixin tusaale ahaan haddii aan ka soo qaadano waxaa tusaale noqon kara markii aad u baahatid inaad computerka hagaajisatid waxaa suurtagal ah in uu ka halaabo dhinaca cajaladaha meesha lagu daawado ama se printerka ama se maaragtay waxaa dhici karta printerkaaga inuu ka halaysan yahay waxaa dhici karta in uu ka halaysan yahay speedkaaga inuu ka yaraado ama xawliga uu ku socdo computerka waxaa suurtagal ah inuu ka yaraado maaragtay virusay aadna maaragtay dhib badan inuu ka galaan sidaan hore uga soo sheegnay casharadii hore dhowr si lagu saaray hase yeeshee 2010 waxa soo baxay wax la yiraahdo fix center wax la yiraahdo oo ay soo saartay Microsoft marka qofka hadii uu haysto computer aaladiisa ay ku salaysan tahay Microsoft waxa awood uu helayaa marka in uu tago website oo aan mar dhow halkan ku soo sheegayno oo dhammaan waxyaalaha yaryar oo dhan uu halkaasi ku samaysto computerkiisa marka website-kaasaytan waxa ay tahay sida soo socoto waxa la yiraahdaa waa Microsoft Fix Center baa la yiraahdaa waa halkaasi Microsoft Fix Center marka haddeertan halkaas baanu tagaynaa kadibna waan arkaynaa waxa aan ka qaban karno bal wax yar raali ahaada marka aan dhinacaasi Microsoft Fix Center aanu tagno Microsoft Fix Center waa halkaasi weeye Microsoft marka aad tagtid Microsoft Fix Center waxa ay shaashada ku noqonaysaa waa sidan oo kale waxa taabanaysaa marka try it now ba taabanaysaa markiiba waxa ku soo baxaya masaf gareynaysaa waa run gareynaysaa hadaba run marka tiraahdo macnaheedu waxa weeye waxaad ogolaatay in dhammaan waxyaalaha halkaasi ka socda oo dhan lagu shubo computerkaaga fasax baad u siisay way macnaha mar walba continue ba taabanaysaa si aad ogolaashahaasi aad u sii wadid mar alla markaad dhamaystirtid oo aad ku shubtid computerkaaga waxa ku soo baxaya waxa weeye waa sidan weeye waxa ku soo baxaya waxa markiiba ku soo baxaya markaad dhamaysid inaad ku shubtid computerkaaga waa halkaas waxa ku soo baxay marka saad halkan uga jeedaan waxyaalo badan ayaad awood u leedahay inaad ku suubisid sida amaaragtay aad u jeedo hadii aad internetka oo mararka qaarkood internet explorer marka isticmaalayso iska xiro ama uu iska damaba markiiba ama si intaad wax dalbatid oo muddo badan sugtid hadii printerkaaga problem uu ka leeyahay hadii batarigaaga oo mar walba iska dhacayo ciladiisa aad doonaysid inaad ogaadid in bateriga qariban yahay hadii codkaaga mararka qaarkood waxa dhici kara adigoo ama baalto galayo oo waxyaalo raba inaad dhageysatid ama sacajaladahaaga uusan waxba ka dhageysan kareenin halkaas baa ka saxi kartaa marka sidaad u jeedid waxyaalo badan ayuu ku saxayaa Microsoft Fix Center uma baahnid inaad qof u tagtid ama aad qof raadisid hadii aadan aqoonin computerka waa maaragtay dib malaha iyada naftirkeeda sidan baad sameynaysaa aan hadda ku soo sheegnay marka ka soo qaad tusaale hadeertan hadii aad doonaysid inaad samaysid aad ogaatid codka oo kale aan soo qaadana bal hadda codka oo kale hadii aad leedahay ma sameyn karaa macna detect problem and apply fix for me waad ogolaanaysaa in ku baaro cilada markiina uu ku saxo hadii codkaagu wax ka helaysan yahay waa leedahay okay baad leedahay kadibna isaga ayaa isbaaraya marka runtii waa aalad aad iyo aad u wanaagsan oo qofka siinaysa fursado badan oo maaragtay uusan u baahnayn guriga inuu kaga baxo ama se xafiiska uu kaga baxo hadii ciladaasi uu la kulmo markiiba se hadda u jeedid wuxuu fiirinayaa dhammaan waxyaalaha codka ku saabsan oo dhan ee ku jira computerkaaga ayuu baaraya mar alla markuu uu baaro wuxuu ogaanayaa marka ama se hadii uu helo cilad ayuu ku sheegayaa isla markii baaritaanka sida uu ku wada uu weydiinayaa midda ka halaysan buu ku weydiinayaa ma microphone ba ka halaysan keeban baara ayuu ku oranayaa ma ciladaada ma microphone aad ku hadlaysid ba mise waa speakerska marka aan hadda waxaan taabanayaa kan hore oo ah maaragtay Microsoft speakerka iyo headphone-ka oo ah kan aalada codka laga dhageysto next baan oranaya marka baaritaankii ayuu ku jirayaa oo soconaya markii uu baaritaankii dhinac walba ka baaray
codka waxa qaribi kara computerkaaga wuxuu ku soo saarayaa hadaba waxa ay noqotay natiijada marka waa uu dhameeyay troubleshoot is complete way natiijadii waa uu dhameeyay ciladii isagoo baarayo marka wuxuu laakiinse waxa nasiib darra computerkayga wax cilada ma laha haddii uu cilad lahaan lahaa markiiba uu ku soo saari lahaa saa halkan u jeedo no fix were applied waxba lama ansixin sababtoo ah mar hore ayaan hagaajiyay wax dhibaato kama qabo laakiin haddii ay cilad jirto wuxuu ku oranayaa ciladaas baa jirta ma saxa kadibna waxa leedahay ha sax baad leedahay marka sidaa baa ku baaraysaa haddii codka ka halaysan yahay printerka ka halaysan yahay iyo dhammaan wixii kale ama se uu speedkaaga xataa is yareeyo computerka kulli markii aad download garaysid waxa kuu soo baxaysa oo aad arkaysaa markiiba waxa kuu soo baxaya waxa weeye shaashadan baa kuu soo baxaysa markiiba oo uu markaas awood kuu siinaya in aad wixii dhanba aad hagaajisid marka markii shaashadan markay kuu soo baxdo haddii internetka freeze uu kaa noqdo problem kale printerka kaa noqdo waxaasoo dhan asaga ayaa kuu saxaya uma baahnid inaad dad weydiisatid in cilad laga saxo haddii aysan ahayn ciladu mid aad iyo aad ku weyn oo intaba uusan saxi karin Microsoft Fix Center mar kale waxaan idin leenahay dhammaan bahda la socota iyo dugsi casharada yaryar ee ka baxa mar kale soo dhawaada 2010 kana waxaan rajaynaynaa in casharro kuwaan oo kale iyo kuwa ka sii fiicanba aan idin soo duubno wixii fariina guubaabin ama se talooyin ah intaba noogu dhaafa emailkiina ama se ku dhaafa xataa YouTube-ka halkan aad ka daawanaysaan aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.